بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله anigoo Dr. Awali Abdullahi dhakhtar qaliin barasare kana howlgala isbitaalka Dr. Sumayed Hospital maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo burooyinka doonta ku dhaca ama qanjirka yiraahdaan thyroid oo afka qalad loo yaqaano goiter inay neefta qofka cariiri ay ku noqoto wax la qida dhibaato uu kala kulmo goiterkan waxa loo kala saaraa noocyo badan oo simple goiter mid ay dhahaan nodular goiter multinodular goiter mid kale dhahaan dyshomogenesis oo ayagana inta badan environmentiga iyo waxyaabo la xiriiriyo waxaa la arkayaa laba waaye hyperthyroidism iyo hypothyroidism. Hyperthyroidism inta badan waxaa la arkaa qofka inay indhaha bannaan ku soo baxaan neefta dhibto wadna garaac zaid la arko qofka shubal lagu arko miisaankiisa hoos u dhaco hypothyroidism calaamadaha ay leedahay kamid qofka miisaanka kordhayo caloosha inay fadhiisato caado wareer siiba dumarka kale lagu arko iyo wadnaha garaaciisa oo aad u hooseeyo inta badan anaga dalkeena la socotaan waxaa jira gobollo aad uga fog xeebaha sida Mudug Galgaduud Baayo Bakool kuwaas oo dhan aydinka ayaa aad ugu yar environmentiga wala xiriirana raashinada la cuno loo parasilica radiationka waxyaabaha soo dhan waxyaabaha la xiriiri kara ay ka mid tahay daaweynta marka waxay noqonaysaa baaritaano iyo daawo baaritaanada ugu muhiimsan waxay noqonaysaa dheecaana la qaado la yiraahdo T3 T4 iyo TSH iyo in ultrasound la saaro si loo arko burada waxa kale muhiim ah in dheecaan laga qaado la dhaho FNA si loo ogaado waxaan hadii kansar ay xiriir leeyahay hadii kale hadii marka intaas la sameeyo inta badan hadii marka qanjirka shaqadiisa aad u badan tahay TSH ku aad hooseeyo T3 T4 ka aad u badan yihiin inta badan daawooyina sida carbamazepine iyo kiniiniyaal ay dhahaan propranolol oo asna ugu talagalnay in maxal yiraahdo nagaraac zaidka la yareeyo kadibna euthyroid waxay yiraahdaan oo ah in qanjirka normal functionkiisu ku soo laabto hypothyroidism aydan waxaan sameeynaa maadaama qanjirka shaqadiisa aad u yar tahay waxaan sameeynaa in la sii L-thyroxine oo muhiim u ah ama marka qaarkood radioactive kuwa la siinayo jiro soo kuwaas oo dhan ayagana muhiim ay u yihiin qofka in la siiyo waxa kaloo asigana aan ugu dari karnaa iodine iodized salt cusbayro waxaa jirto oo inta badan xeebaha laga helo oo iodine ku jirto anaga su'aalaha ugu horeeya aan weydiino waxay tahay qofka hadii uu neefta dhibayso wax la qiday dhibayso inta badan qalin ayaan sameeynaa noocyada qalinka waa badan yihiin hadii hal dhinac ku yaalo kale waxa la lobectomy hal dhinac in la bixiyo in laga hortago in dhibaato ay ka timaado hadii kullu wada bixisho haduusan dhakhtar qalin fiican u soo sameeyo waxa kale oo la sameyn karaa total thyroidectomy hadii markaas qofkaasi for life inuu isticmaalo noqonay L-thyroxine sida ugu muhiimsan ee looga hortagi karo waxay noqonaysaa inuu kalluunka ama fishka uu isticmaalo in uu mar walbo uu qofka isku arko buro doonta ah inuu isbitaalka ama dhakhtarkii ku haboonaa uu gaaro marka qaarkood burada waxay noqon kartaa cancer ayadana waxay leedahay sida ugu dhaqsiyaha badan qalin degdeg uu qofkaasi u helo ayaa muhiim ah iyo daawooyinka kale u baahnaa kansarka ay ka mid tahay chemotherapy radiotherapy iyo midda ugu muhiimsan oo ah in daawooyinka loo qoro inay xilligoodii ku isticmaalaan aad u mahadsantiin